أنا كبيرة تعوتني أربعة مشان waa qatar kale oo ku sii baahaysa magaalada Muqdisho muuqaal argagax leh ayaa laga soo duubay nin doonaya inuu u dhaco guri Soomaaliyeed kaas oo rabay inuu ka soo afduubto caruur hase yeeshee ugu dambeyn gacanta ayaa lagu dhigay waxaana laga qaaday waraysi isagoona ku hadlaya hadallo badan oo la yaab ku abuuray dadkii waraysanayay hase yeeshee daawadayaal inta aan idinla wadaagin muuqaalada laga soo duubay iyo sidoo kale xogaha iyo macluumaadka ku aadan ninkan iyo hawsha uu damacsanaa fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu u baaho bulshadeynta Soomaaliyeedna u gaaro arrintan ay uga digtoonaadaan sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adiga oo janaalkeena subscribe daawadayaal waxaa jira dhowr warbixin oo aynu horay u diyaarinay kaas oo aan bulshadeynta Soomaaliyeed kaga digaynay in ay caruurtooda ilaashadaan maadaama ay ku soo badatay Soomaaliya qaasatan magaalada Muqdisho xatooyada caruurta haddaba daawadayaal maanta waxaan idinla wadaagi doonaa dhacdo kale oo la yaab leh waxa magaalada Muqdisho qaasatan xaafadda Howlwada ka dhacay arrin la yaab leh kadib markii la qabtay nin doonaya inuu caruur xado haddaba ninkan oo dhiiranaantiisa gudaha u soo galay guri ayaa waxa uu rabay inuu caruur halkaasi ka qaato hase yeeshee maamadii dhashay caruurta ayaa aragtay waxa ayna mar qura qabsatay qaylo dadweynihii dariska la ahaa ee dhalinyaro ku sugnaa xaafadda ayaa markiiba ka daba booday ninka iyagoona soo qabtay haddaba daawadayaal waa kan waraysi laga qaaday ninkan oo ku hadlaya hadallo badan oo isdhaaf ah kuwaas oo ay dadkii waraysanayay la yaabeen حافظ حاجة قبيس حافظ حاجة قبيس رجال أودي وأنا توج أودي لا وعقول نقدر نسوي وراكم مكان جبديت دك مدة أشهد به شاش أوجد وعودينا خلينا جينا ولا ما عدس ما واحد باقي بقول عليه وأنت ما باقي لها عيال القطع في الأقل ولا ضوء ما ولا دلاتا درك عيل عيل قدامك عيل برنامج قاعد كلام تي سيري حاجة قبنيس حافظ حاجة قبنيس هذا مراد قبنا شرعي يا حتى ما تقول ساق ولا محل وقول ساق ولا هذا الله حتى ما تقول ساق ولا محل وقول ساق أنا كبيرة تعوتني عكس كبير عكس بعد عكس في عكس بعد عكس بعد دبي قان أنا ماشي مريض ويعرف يعني أنا الوعاسة وعن دمر وعدو نبي قلنا دو وعود مفتي وعود قطي وقلنا استعار واحد مشان معاه عرض المركزي معاه عرض عبسي يعني ويني جاك معك عبسري زداد واحد مسكوجن معك عبسري مسكوجن معنا خايلة خايل سوير عبسري وعن دمر وعدو من وعن قصاص كل شاك عبسري ده دقنت وريا حاجات دقنت معك صادون تربونك سقينيس حاجة قطع تربون رجاج ما وطا رجاج ما كده قطع أي فم الكاغس اكس أي لمبرك فم الكاغس لمبرك فم الكاغس شنو ايه يا والله ورا لمبر ساعة شاك ورا لمبرك هذا ما وشك وعلى تابع وبرها ما قادر نقف قادة العكس عنق بس على مقاس فعل بحر ما
أنا ولا شيء وهو كتر وانا دلاي وانا يوم ولا يقول عدل haddaba daawadayaal waxaan rajeynayaa inaad daawatay dhacdooyinkan la yaab kale ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxaa lagu arkayaa magaalada muqdisho. Shalay ayay ahayd markii nin kale lagu qabtay magaalada muqdisho kaas oo gabar yar ku ceyrsanaya midi. Haddaba ninkan ayaa boolisku xabsiga u taxaabeen waxayna dhacdadani ka dhacday sida la sheegay degmada Kaaraan. Haddaba waa kan isna muuqaal laga soo duubay ninkan oo ay dhalinyaro ku ceyrsanayaan goob wada ah ugu dambayna loo gacan geliyay booliska. haddaba daawadayaal waxaan rajayn doonaa in muuqaaladan ay digniin ugu filnaan doonaan waalidiinta ku sugan magaalada muqdisho haddii caruurtaadu ay keligood aadaan waxbarashada. haddaba waxa ay ku sugan yihiin qatar. haddii aad caruurtaada magaalada wax uga dirsato waxa ay ku sugan yihiin qatar. waxaa magaalada muqdisho kusii xoogeysanaya kala iibsiga caruurta Soomaaliyeed iyadoo ayna maalin walba rag iyo dumar usoo shaqo tagaan sidii ay caruurtaasi u geyn lahaayeen goobaha loogala baxo kiliyahooda. haddaba weli arrintan dadka Soomaaliyeed kuma baraarugsana, dowladooduna kama aysan soo saarin wax hadal ah. haddaba waxaan rajayn doonaa daawadayaal si muuqaalkan u faafo inaad leegaray doonto bulshooyinka Soomaaliyeed oo kalena aad gaarsiin doonto.